waxaa jiray nin la yiraahdo Cabdinaasir waxa uu ahaa askarigaas oo ka shaqeeya xabsiyada. Asaga waxa uu ahayd shaqadiisu inuu markaasi ilaaliyo maxaabiista. Waxa uu helay shaqadiisii in markaasi loo dalacay, waxaana loo wareejiyay xabsi kale oo markaasi ku yaalay magaalo kale. Xabsigaas ayaa loo sii wareejiyay, markaasi bartaas ayuu sidiisii xabsiga u ilaalin jiray. Laakiin shaqadiisa mar walba oo kor loo dalaco, ugu dambeyn wuxuu noqday sarkaal. Waxa uu markaasi la fariisan jiray maxaabiista, waxaana weydiin jiray waxay u baahan yihiin, haddii ay familkooda wax looga soo qaadayo ama haddii familkooda hadal loogu gudbinayo. Maxaabiista way jeclaayeen, waxa uu ula hadli jiray sidii inuu iyaga ka mid yahay oo kale. Waxa uu mar walba fiirin jiray faylasha maxaabiista, asagoo raba inuu ogaado waxa ay sameeyeen. Maalin maalmaha ka mid ah sidiisii caadiga ahayd isagoo fiirinaya faylasha, ayaa waxa uu arkay fayl ay ku qoran tahay magaca Cabdalla. Ninkani Cabdalla waxa uu ku xiran yahay xabsiga oo markaasi ka joogo isaga sarkaalka ka yahay. Asaga markii uu fiirshay, waxaa ku taala dambiga uu galay inuu yahay inuu xaaskiisa dilay. Hase ahaatee inuusan ahayn dil caadi ah ee uu markaasi xaaskiisa ku dilay in uu isagu cunay. Cabdinaasir aad iyo aad ayuu u yaabay. Wuu la yaabay maxay tahay qofka cunayo oo u yahay dambigiisa. Wuu aamini waayay, wuu daba wareegay faylkii, qof walba ayuu ku hubsaday oo baaritaankii uu soo maray iyo wixii dhan iyo maxkamadii waxa uu ka xaqiiqsaday inuu markani ninkani Cabdalle uu run ahaantii xaaskiisa dilay oo uu cunay. Cabdinaasir wax walba uu sameeyay arrintaasi madaxiisa ka dhaadhici weysay. Markaas darteed wuxuu go'aansaday inuu ugu dambeyn uu markaasi wareysto Cabdallaha laftirkiisa. Waxa uu weydiiyay askari meesha jooga inuu u keeno Cabdalle. Markaasi waa la soo kaxeeyay Cabdalle. Wuxuu ku yiri, aniga waxaan ahay sarkaalka meesha jooga, waxaana diga soo qaadaa saaxiibkaayo kale ee ii sheeg xaaskaaga maadaa dilay. Cabdalle oo aan rabin inuu sheekadaas ka sii sheekeeyo ayaa wuxuu dhahay, haa, aniga ayaa xaaskayga dilay. Markaas ayuu wuxuu dhahay sheekadaada iga sheekay, waana uu diiday. Ugu dambeynna wuxuu ku qasbanaaday inuu meeshiisa iskaga celiyo. Waxa uu markaasi Cabdinaasir go'aansaday inuu wareysto nimanka isku meesha ku xiran yihiin Cabdalla. Markii uu wareysto waxay ku dhaheen, ninkani waa nin furfuran, wuu nala fariistaa oo wuu nala sheekaystaa. Laakiin markii aan ku soo hadal qaadnaba arrinta xaaskiisa, gees ayuu nooga baxaa oo gabigiisa buu isxirxiraa. Mid ka mid ayaa markaas wuxuu ku yiri Cabdinaasir, arrinta aan kuu sheegayo cidnaha u sheegin. Aniga habeenkii ma ihi qof si degdeg u seexda, laakiin nimankan meesha igula xiran oo dhan kulligood habeenkii hore ayayba u dhacaan. Markaas waxaa maqlaa ayuu dhahay habeen walba Cabdalle oo qaylinaya oo dhahaya, waad i khiyaantay, been ayaad ii sheegtay, xaaskayga ayaad igu kaliftay inaan dilo. Markaasna isagoo ooyiyo. Markaas Cabdinaasir wuxuu is yiri, hadda ayaa waxaad heshay markaasi ninkani inay daliil tahay inuusan xaaskiisa dilin ee ay dad ka dambeeyaan ay ku kalifeen inay xaaskiisa dishay. Markaasi ma uu la tegi karo maxkamadda si uu u dhaho intaa kaliya, sababtoo ah caddayn ma haysto. Haddii uu markaasi isdaho ninkan caddayn u qaado, ninkani waxaa laga yaabaa inuu isbedelo oo uu ka inkiraba. Markaas wuxuu go'aansaday inuu caddaymo raadsado. Maalin maalmaha ka mid ah oo ahayd maalintii dadka maxaabiista ay familkooda alaabaha u keenayeen sida dhar iyo buug iyo wax un ay waqtiga xabsiga isku dhaafiyaan, ayaa waxa uu arkay markaasi in Cabdalle ay u keeneen markaasi malab iyo sidoo kale quraan lagu soo tufay biyo. Markaasina waxa u keenay waxay ahayd Cabdalle walaalkiis iyo sidoo kale sheekh la socday. Waxayna ku dhaheen, ninkan wuu sixran yahay ee alaabtan ha loo geeyo. Maamulaha xabsiga le markaasi waa uu diiday in alaabtaasi loo gudbiyo Cabdalla. Markaasi wuxuu siray Cabdinaasir, waa Jaanis. Markaasi wuxuu tagay Cabdalla wuxuuna ku dhahay, waxaan arkay alaabta lagu keenay, laakiin maamulaha meesha waa uu diiday in lagu soo gudbiyo. Markaasi Cabdalle aad ayuu u xanaaqay, wuxuuna dhahay alaabta sayd ayaan ugu baahnaa. Markaas ayuu wuxuu ku dhahay Cabdinaasir, alaabtaas waan kuu soo gudbin doonaa ee waxaan rabaa inaad sheekadaada iiga sheekayso. Markaas ayuu wuxuu ku dhahay Cabdalla, haye, waan kaaga sheekeynayaa ee fadlan alaabta ii soo gudbi. Markaasna Cabdinaasir waa u soo fasaxay alaabtii. Subaxdii xigtay ayuuna ku yiri, waa kaaga sheekeyn doonaa. Cabdinaasir habeenkaasoo dhan waa uu sugi waayay waqtiga looga sheekeyn doono sheekada ninkani. Markaasina subaxii markii la gaaray oo u tagay ayuu wuxuu ku dhahay Cabdalle intuu ku qoslay, marun ayaad iiga malaysay, waxba kaagama sheekeyn doono ee isageydaa. Kadibna Cabdinaasir aad ayuu u xanaaqay. Ninkani ma uu rabo inuu ka sheekeeyo sheekadiisa, laakiin inta markaasi ninkani lagu dili doono oo ay tahay toogashadiisa waxaa ka dhiman 20 bari. Waxa uuna ka baqayaa ninkani inay dad ka dambeeyaan oo ay markaasi ka dilaan xaaskiisa oo isna uu sirtaasi la dhinto. Wuxuu waqtiga socdayba maalin maalmaha ka mid ah waxa uu markaasi maqlay
qaylo ka yeeraysa qolaalka cilada midkood. Markaasna waxa uu weydiiyey qofka ku jira, waxaana loo sheegay inuu Cabdalla yahay. Isaga iyo nin kale ayaa istagaalay. Markaasina waxaa lagu soo xiray qolkan cilada oo ah qol mugdi saa'id ah. Markaasi qaylada uu joojin waayay Cabdalla ayuu Naasir u tagay albaabka furay. Markii uu furayna wuxuu arkay Cabdalla oo dhulka yaala oo markaasi suuxsan. Si degdeg ayaa loo soo qaaday Cabdalla. Dhakhtar ayaana la geeyey. Xoogaa kadib uu soo baraarugay wuxuuna arkay Cabdinaasir iyo askarigii meesha joogay iyo sidoo kale dhakhtarka. Wuxuu yiri xagee ayaan joogaa? Wuxuu ku dhahay Cabdinaasir waa suuxday. Haddana bartaan ayaan ku keenay. Markaas wuxuu yiri haye waayahay igu celiya qolkayga. Cabdalla waxaa lagu ceshay qolkiisa. Arrintii uu la yaabana Cabdinaasir waxay ahayd Cabdalla markii uu qolka mugdiga ku jiray waxa uu ku cabaadiyay waan ka baqayaa mugdiga ee fadlan iga saara. Markaasna waxa uu weydiiyay mar kale inuu sheekadiisa uga sheekeeyo, laakiin sidiisii Cabdalla waa uu ka dhaartay inuu sheekadiisa ka sheekeeyo. Wuxuu waqtiga socdayna 3 bari kaliya ayaa ka dhiman toogashadii Cabdalla. Cabdinaasir oo aan weli kuusan markii ugu dambeysay ayuu ku laabtay. Waxa uuna weydiiyey inuu sheekadiisa uga sheekeeyo asagoo ku dhahaya 3 bari ayaa kuu dhiman. Waxaanan ka baqayaa dadkii adiga dhibaatada kuu geystay inaysan cadaalad arkin. Markaas wuxuu ku yiri Cabdalla waan ogaa 3 bari inay ii dhiman tahay. Sheekadanna waan ku dhimanayaa kuma sheegayo ee iska tag. Markani faraha ayuu ka qaaday Cabdinaasir waanu iskaga soo tagay. Markii 48 saacadood kaliya ka dhiman tahay dilkii Cabdalla ayaa markaas wuxuu codsaday askarigii meesha joogay. Wuxuuna ku dhahay waxaad u sheegtay Cabdinaasir sheekada inaan uga sheekeyn doono ee iigee. Markaasna Cabdinaasir waa loo keenay. Cabdinaasir markii uu arkay Cabdalla wuu la yaabay. Wuxuuna ku yiri haye wuxuu ku dhahay sheekadii ayaan kaaga sheekeynayaa intaasoo dhan aad weydiinaysay, laakiin 2 codsi ayaan wataa. Markii aan sheekadani kaaga sheekeeyo oo aan dhinto kadib waxaan kaa baryaa haddii aad jaanis heshid oo aad Kacbada aadid inaad Ilaahay ii bardi inuu ii dambi dhaafo oo xaaskaygana u naxariisto. Marka labaadna waxay tahay sheekadan haddii aan kaaga sheekeeyo dadka dhan gaarsii ee ha qarin anigu sir intaa ka badan ma u haynayo. Cabdalla wuxuu ku yiri aniga waxaan lahaa xaas hase ahaatee waxaan ahaa qof aad u jecel internetka. Markii aan shaqada ka soo laabto si toos waxaan u geli jiray internetka. Markaasina xagaas ayaan dadka kala hadli jiray. Maalmaha ka mid ah ayaa waxay ka soo warbaxay website-ka ku taalo sixirka baro. Markaasi dad badan ayaa waxay soo qorayeen inay arkeen waxyaabo la yaab leh inay waxaas tijaabiyeen. Markaasi aniga inta dadkii u galay ayaan waxaan ku cacaayay waxay sameynayeen been tahay oo sidoo kale ku jeesjeesay. Markaasi mid ka mid ah dadkii ayaa wuxuu igu yiri adigu soo tijaabi. Waxaad soo tijaabaysaa midka ugu fudud oo ah madiido. Aniga ma aaminsaneyn madiidada. Dadka markay u tagaan dadka sixirolayaasha waxay ku dhahaan qofka jecesha ayaan kuu soo xirigelinaynaa, laakiin lacagta ayay ka dhamaysanayaan oo waxaas run ma ahayn. Laakiin tani way ka duwaneen. Madiidadani laguma sameynayo bini'aadan caadiya ee waxaa lagu sameynayaa jin. waxay ahayd arrin aad u fudud. Waxa aad sameynayso waxay tahay inaad markaasi dooranaysid xaas oo jin ah, taasoo markaasi aad adiga dooranaysa qaabkay u eg tahay oo ay tahay inaad adiga niyeysanaysid qofkii aad jecleed ama qof qurux badan aad korka aragtay, kadibna jinkaasi ayaa u ekaanaya, kadibna xaaskaaga ayay noqonaysaa. aniga ma aaminsaneyn, laakiin waxaan go'aansaday inaan sameeyo. sidaas darteed waxa ay ii direen ayaan sameeyay. alaabihii ay sheegeen ayaan soo aruursaday. markaasna qol mugdiga ayaan diyaarsaday. xaaskayga ayaa habeenkaas wixii aadaysay reerkeeda. waxaanan ku iri aniga maanta saaxiibkay ayaa ii imanaya ee fadlan reerkaaga la caway. markaasna way iga yeeshay. guriga keligay ayaa markaasi joogay. hadda qolkii mugdiga ahaa iyo sidoo kale jawigii deganaa iyo alaabtii la ii diray wixii dhan ayaan isku haystaa. waxaan markaasi dhex fariistay qolkii mugdiga anigoo aamusan. markaasna waxay ahayd arrintu inaan niyeysto qof aan jeclahay. markaasi niyadeyda waxaa ku soo dhacday gabar aad u qurux badneed oo markaan yaraa aan aqaanay. gabadhii ayaan niyeystay. saa u joogay waxba ma dhicin. xoogaa kadibna waxaan maqlay qof naaga oo agteyda ka qoslayso sida inay qolka igula jirto kale. cabsi darteed qolkii waan ka soo cararay oo hoolkii guriga ayaan istaagay. xoogaa kadibna qolkii ayaan ku laabtay anigoona cawdubilaysan. waxaanan arkay alaabtii oo meesha ku diyaariyey oo kulligood wada gubtay oo qiic ka kacayo. intaas markii aan arkay intii ay cabsi igeli lahaydba waxaan dareemay xiise aad u badan. markaasna
waxaan ku laabtay meeshii waxaanan qoray waxaanan arkay sidoo kale in ka badan 25 qof in waxaan ka arkay ee dhammaantood wada arkeen markii ay niyeysteen qofkay jeclaayeen kadibna waxaan dareemay waxaan inay wax run yihiin markaasna waxaan isiri waxaad heshay kanzi markaasna waxaan isiri waxyaabo badan ayaad tijaabinaysaa habeenkii qolkii ayaan seexday markii aan seexday waxaan dareemay sidii inaan sina u soo jeedo haddana si aan u hurdo sidii inaan u dhaxeeyo kale caalamka runta iyo caalamka khayaaliga waxaan markaasi maqlay isla qosolkii qolka ka yeerayay markii aan geeskayga soo fiishinay waxaan arkay gabadhii aan niyeystay ee quruxda badneed oo agteeda fadhido iyadoo qoslayso aniga aad ayaan u yaabay waxaan ku dhahay xageebaad ka maqanayd xageebaad iga aaday waxay igu haysay intaasoo dhan waan ku ag joogay aniga habeenkii dhan waan la qoslayay tinteeda ayaan taabanayay waan la sheekaysanayay ugu dambeynna waxaan ula seexday sida dadka qaba ay iskula seexdaan subaxii markii aan soo kacay waan yaabay waxaan garan arrintaas inay run ahayd iyo inay been ahayd laakiin farxad saa'id ayaan dareemayay waxaa bad moodaa habeenkii noloshayda ugu farxadda badneed inay ahayd sababtoo xalay waxaan isdareemay inaan caruus ahaayo kale markii aan meesha ka kacay meesha waxaa ku taalay calaamadaha sidii 2 qof inay meesha jiifsadeen oo kale intaas markaan arkay maba u dangelinba waxaan inay run ahaayeen inay riyo ahaayeen waxaan ku faraxsanaa kaliya dareenka dareemayay xaaskayga ayaa soo wacday ayadoo qaylinayso waxay ku dhahday maxaa kugu dhacay waxaan dhahay maxaa ka wadaa waxay tiri waqtiga fiiri waqtigani waa casar aniga habeenkii ilaa casarkii ayaan hurday weligeyna intaasoo dhan noloshaydii oo dhan maan seexan gabigaygaba 7 saacadood ayaan weligeyba seexan jiray wixii intaa ka dambeysay habeen walba haweenaydii waan arkayay anigana way u hooyanaysay waxay ahayd xaaskaygii cusub oo kale qolkaas ayaana seexan jiray cilada xaaskayga markaasi way iga ashtakootay waxay igu tiri maxaa kugu dhacay weligay kamaan seexan meel ka duwan xaaskayga meesha seexanayso aad ayay markaas u yaabaneen aniga waan karaahsaday xaaskayga waana nacay waan dhibsanayay tan ayaan ku faraxsanaa ii imanaysa habeenkii markaasna xaaskayga waxaan ku iri qolkaas ma galaysin qolka ayaana mar walba isku soo xiri jiray markaasi xaaskii oo yaabanaya waxay go'aansatay qolkaasi waxa ku dhex jiray inay ogaato waxayna markaasi maalin maalmaha ka mid isagoo Cabdalla guriga ka baxay soo qaadatay koobi ka mid ah furayaashii waxayna ku furtay qolkii markii ay gashay waxay aragtay qolka oo mugdiya waxaana ka buuxay qashin asaga ayaa wadooyinka ka qashin badnaa waxaana yaalay joodari xuna kaas oo markaasi dheecaano lahaa markaasna waxay istiri naag ayuu soo gashaa markii aad hurididna guriga uu ka saaraa ayadoo xanaaqsan ayay intaas aragtay xaaskayga arrintii way adkaysan weysay ugu dambeynna waxay u dacwootay qaraabadeedii markaasna waxay u sheegtay in aanan anigu taaban oo aanan qolkaba la soo seexan markii aan arrintu qaraabada gaadhayba waan xanaaqay waxaan ku dhahay maadaama ay arrintuni soo gaadhayba gabadhiina qabsada maba rababa waan ku farxay inay reerkii u sheegtay markaasna reerkeedii ayay ku laabatay guriga oo way iga tagtay iyadoo xanaaqsan maalmihii maqneedna waxaan dareemay farxad aad u badan oo culayskeedii ayaa markaasi iga tegay xaaskayga iyadoo reerkeeda la joogta ayay waxay isdhahaysay ugu yaraan wuu ku soo ceshan doonaa laakiin hadalkaygaba ma iisan maqlin oo hadal dhinacii ka soo socda ama anoo raadinay imay arag hooyadeed ayaa la hadashay waxayna ku tiri doqon yahay ninkaaga ugu dambeyn wuu ku furi doonaa haddaasaan kusii socotid naag kale ayuunu kaysan doonaa ee waxaad samaysaa aabbaha iyo walaalka kaxayso waxaanad u tagtaa isagoo aan ogahay inuu ka xishoon doonee gurigii markaasna waxaad u sheegtaa oo sharad uga dhigtaan inuu markaasi qolka xiro oo uu furayaasha iska soo wareejiyo markaasna wuu kaa yeeli doonaa gabadhii waxay tiri waa caqli walaalkeed iyo aabaheed ayay kaxaysatay guriga ayayna tageen albaabku way ku garaaceen haddana way ku garaaceen laakiin cidna mayse ka furin wayna iskaga tageen habeenkii 3 saac markay ahayd ayay ku soo laabteen albaabka ayay ku garaaceen markaana Cabdalla ayaa ka furay isagoo hurdo ka muuqato wuxuu dhahay waan daalanay maxaa rabtaan waan hurdo maanta oo dhan markaas way la yaabtay intaan oo dhan Cabdalla weligiis ma seexan markaasi gabadha aabaheed ayaa la hadlay wuxuuna ku dhahay gabadhii waan kuu soo ceshay laakiin sharad ayaan wataa sodaha ayaan ahay ee waxaan u baahanahay inaad iga xishooto marka waxaan kaa rabaa inaad qolkaasi aadan mar labaad ku laaban oo aad soo xidhid furayaashaana igu soo wareejisid xaaskaagana dhagatid Cabdalla wuu isku xishooday wuuna ka yeelay markaasi furayaashii oo dhan ayuu u dhiibay markaasna wuxuu aaminsanaa in koobigii jikada yaalay uu markaasi weli yaalo laakiin muu ogeyn kaasna inay xaaskiisa u dhiibtay habeenkii markay ahayd ayuu furayaashii guriga yaalo dhan soo qaatay asagoo ku tijaabinay qufulkii laakiin midna umuu furin markaasi wuxuu iska jiifsaday hoolkii asagoo raba inuu seexdo si uu u arko jacaylkiisii laakiin hurdo way ka soo dhici weysay
suu u soo jeeday ayuu ugu dambayn daal dartii iska seexday. Markii uu seexdayna wuxuu arkay jacaylkiisii, laakiin markani aad ayay uga fogeed. Markaas wuxuu ku dhahay ii imow, wayna diiday. Waxay ku tiri ima taabanaysid ilaa aad iga qabatid xaaskaaga oo aad dishid xaaskaaga. Cabdalle wuxuu noqday sida qof waalan oo kale. Meesha ayuu ka soo kacay, kadibna wuxuu galay qolkii ay xaaskiisa hurday. Markaas uu kor istaagay, gacanteedoo dhan ayuuna afka gashtay. Wuxuuna bilaabay inuu cuno. Gabadhiina si ay u gelinaysa meesha ayay ku dhimatay. Markaasna reerkeeda ayuu wacay. Wuxuuna ku dhahay gabadhiina way xanuunsantahay, kaalay meesha ka kaxaysta. Kadibna gurigii wuu iskaga baxay. Subaxii markii la gaaray oo reerku yimaadeen, waxay arkeen gabadhii oo meesha taalo, dhiig badan ka baxay oo meelo badan laga cuncunay. Waxaabad moodaa bahal muddo badan gaajaysnaa inuu meel cilaa ku helay. Kadibna waxay geeyeen dhakhtarka. Meeshaas ayayna ku war heleen inay markaasi dhimatay. Markii baaritaan lagu sameeyeyna waxaa la ogaaday qofka kaliya wax u geystay inuu ninkeeda yahay. Cabdallena waa la soo qabtay. Markaasi waxaa loo geeyey dadkii. Markii la wareystayna Cabdalle wuxuu u sheegay isla sheekadani, laakiin hal qof oo aaminay ma jirto oo waxay u maleeyeen inuu dad xun iska yahay un. Sidaas darteed ayaa Cabdalle loogu xukumay xukun dil. Markii uu xaaskiisa dhimatay kadibna markaasi jinkii oo u ekayd naagtu jeclaa way iska daysay inay qaabka ahayd ay ahaato, oo hadda wejigeeda dhabta ayay la soo baxday. Hurdada ayayna u diiday oo cabsi ayay ninkii ku riday. Habeen walbana ma uu seexdo bilaa riyooyin xunxun. 2 bari kadib markii uu sheekadaas ka sheekeeyay Cabdalle waa la dilay. Cabdinaasirna waxa uu tagay xajka oo Ilaahay ayuu isaga iyo xaaskiisaba uga soo baryay.